السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتا قيمها بدن iyo ku xiran channelka Amin Technology. Isku soo noqdo wanaagsan. Insha Allah Taala maanta waxaynu isla daraasay doonaa cashirkii lixaad aynu ku baranaynay HTML iyo CSS. Insha Allah Taala maanta waxaynu isla daraasay doonaa hadduu Allah idmo cashirkii saddexaad aynu ku baranayno web designing qaasatan HTML iyo CSS. maanta waxaynu isla daraasay doonaa hadduu alla idmo afar kufar. ugu horeyn waxaynu ka bilaabi doonaa hadduu alla idmo cascading style sheet oo loo soo gaabiyo CSS. hore ayaan usoo qeexnay CSS waxay tahay, fadlan haddaad soo daawan cashiradii ka horreeyay dib usoo daawo. cashirkan waxaynu kusoo qaadnay CSS qeexitaankeeda iyo waxay tahay cashirkii ugu horreeyay. haddaynu dul marno si kooban, CSS waxaynu soo dhahnay waxaa loo isticmaalaa style sheet. waxay noo suurto gelinaysaa inaan fartayna ku qurxi karno, inaan farta ka CSS waxay noo suurto gelin karna CSS waxay noo suurto gelinaysaa ayaan soo dhahnay inaan wax ka bedel ku sameyn karno website-ka, sida inaan background ka bedeli karno, farta qurxi karno, layout wax ka bedeli karno. waxaas dhan waxaa noo suurto gelinaya CSS. cashkan faahfaahsan waxaan ugu soo hadalnay cashirka koowaad, fadlan dib usoo daawo. sidoo kale waxaynu qaadan doonaa insha Allah types of CSS. sidoo kale waxaynu isla daraasay doonaa CSS syntax, siday usoo muuqanaysa ama anshax ama rule-ka CSS-ka. insha Allah sidoo kale waxaynu isla daraasay doonaa CSS syntax color value iyo sida u kala baxo color value-ga markaynu joogno CSS-ka. ugu horeyn CSS waxaa loo qaybiyaa saddex nooc. kow, inline CSS iyo internal CSS iyo external CSS. inline CSS-ku asigu waxaa lagu qoraa badiga ayaa lagu qoraa. waxaa la isticmaalaa waxaa la dhahay style attribute. shaqadiisana waxay tahay waxaa lagu apply garayaa specific element. halka inline internal CSS uu yahay waxaa lagu qoraa si head section. inline-kana waxaa lagu qorayay badiga. waa ujeedaa farqa ugu dhexeeyo. waxaana loo isticmaalaa internalka style element, halka inline loo isticmaalayay style attribute. sidoo kale waxaa lagu dabaqaa ama loo isticmaalaa dhammaan web page-ka ayaa loo isticmaalaa marka la joogo internal. sidoo kale externalka waa separate file. external markaan isticmaali doono waxaa shardi ah inaan separate file sameyno, file ka soocan file-ka aynu wax ku isticmaali doono, yacni file cusub sameyno. internalka waxaa lagu isticmaali doonaa separate file. sidoo kaleeto separate file-kaas waa inuu lahaadaa extension-kiisuna waxa waaye .css, halka HTML extension-kiisu ahay HTML. sidoo kaleeto waxaa lagu qoraa externalka head section-ka ayaa lagu qoraa. external iyo internal waxaa la isku qoraa head section. badina waxaa lagu qoraa oo keliya inline. aynu isla daraasayno. waxaynu ka bilaabi doonaa inline CSS. waxaynu soo dhahnay inline CSS waxaa lagu qoraa badiga. waa inaan dhex tagnaa badiga. waxaana loo isticmaalaa, waxaa muhiim ah inaad ogaatid waxa la isticmaalo. waa kana waxaa la isticmaalaa style attribute. waxaan dhex tegaynaa badiga, ayaan dhex tegi doonaa badigi. waa kana style attribute waa caawiye. waxaa lagu dhex qorayaa tagga ku furan. markaas hadda anaga paragraph ayaa noo furan, kadib waxaan dhahaynaa style markaan dhahno waxaynu qabanaynaa shaqada aynu qaban doono. color aan dhahaynaa, hadda farta ayaan ka bedelaynaa. color markaan dhahno waxaa shardi ah nooca aynu ka dhigi doono farta inaan sheegno. waxaan dhahaynaa green. waan save garay doonaa. browserka ayaan soo kici doonaa. waan ka xumahay ima kacsan, waxaa i kacsan mid kaleeto. waxaa soo kici kartaa, waxaad tigi kartaa run start debugging. kadib asaga kusoo kici doono.
kadib refresh aan dhihi doonaa. waa kana fartii waa isbedeshay waxa ay noqotay green ama blue ama cagaar afwan. waxaan noo suurto geliyay inaan isticmaalno inline css mar labaad waxaa lagu qoraa dhahnay baadiga ayaa lagu dhex qoraa halka internal iyo external labadooda lagu dhex qoro headka lagu qoro. waxaan isticmaalnay style attribute waxa la dhaho. hadda waxaynu bedelnay greenka farta bis ayaynu bedelnay. sidoo kale waxaynu bedeli karnaa comadaas space in dhahnay kaliya. waxaanu bedeli doonaa background. waxaan dhihinaa shaqada qaban doonaa waxa waaye meesha hadda color ka soo dhigin bis ayaynu ka bedelaynaa. waxaan dhihinaa background naga bedel background marka waxaan ka dhahnay greenkiisa u dhaafaynaa oo save gareynaynaa. kadib saa u jeedidba backgroundki wuxuu noqday mid cagaar ah. waxaynu isticmaalnay inline css markaa isticmaalayso waxaa shardi ah fadlan la xasuusnaaw waa inaad ku dhex qortid baadiga. kadib tag kuu furan ayaa kusii dhex qoraysaa. waxaan dhahaysaa style. kadib waxaad dooranaysaa meesha aad wax ka bedelayso. hadda waxaynu wax ka bedelaynaa dhahayna anaga font farta. hadda fiiri font waa gaari doonaa waxaan laakiin hordhac ahaan waxaynu ku dabaqaynaa inlineka font size ayaynu dhahaynaa. kadib waxaynu dhahaynaa 100 pixel. afwan waxaan dhahaynaa style markaan dhahno waxaan dooranaynaa waxaan dooran doonaa background ayaa dooran doonaa. kadib backgroundka ayaa waxaynu ka dhigi doonaa hadda waxaan ka sugnay green kalkan waxaan ka dhigi doonaa red. kadib waan save garay doonaa. markaa save raadno aan saragna wax dhacwa kaasa u jididba. hadda waxaynu daraasaynay oo keliya inlineka. waxaa muhiim inlineka waxaa lagu dhex qoray baadiga waa la isticmaalaa style attribute. haddana waxaynu daraasi doonaa internalka waxaa la isticmaalaa style element style attribute wuxuu kala duwan yahay. style element marka lagu dhaho waa tag ayaa furaysaa tag ayaa xiraysaa style dhexdiisa ku qoraysaa. halka style attribute oo ahay tag hore u furan ayaa ku dhex qoraysaa. paragraph noo furna ayaa ku dhex qornay. hadda waxaynu tegaynaa waxaa lagu dhex qoraa head section tegaynaa. kadib waxaynu dhahaynaa style kadib waa furaynaa. kadib waxaynu sheegaynaa shaqada aynu qaban doono. hadda waxaynu dhahaynaa waxaynu wax ka bedelaynaa hore waxaynu usoo sameynay ama bidaan la dhahaynaa paragraph markaan dhahno waa kadib background la dhahaynaa background color colorkiisa waxaan dhigtaa black. waa save gareynaynaa. sugaan tegaynaa. saa u jeedid wixii paragraph uu dhan wuxuu ka dhigay kii hore. waxaan usoo qaadnaa cashir ka horeeyay div element waxaa loo isticmaalaa si qayb qaasa loo isticmaalo. hadda ma isticmaalaan div element tusaale ahaan bis ayaynu ka dhigahaynaa. uma baahnin tusaale bis ayuu ahaa waa iska diri doonaa. balaagi waxaas uma baahnin waxaynu ka dhigi doonaa. sidoo kale inaad keli ku dhahdid farta waa ka bedeli kartaa. waa kana hadda green aan ka dhigaynaa. save la dhahaysaa browserka tag soo ran garey guud ayay noqon doonaan. waxaan ku xasuusinayaa uma baahnin anaga inline iyo internal iyo waxaas uma baahnin. waxay kaliya isticmaali doonaa externalka waa css midka loogu isticmaal badan yahay. waxaan ku isticmaalaysaa separate file. waa kana separate file ayaa ku isticmaalaysaa. waan separate kari doonaa. saa u sameeyay separate file waxaad dooranaysaa new file ayaa dooranaysaa.
new file markaad tiraahid waxaan dhahaynaa style afwan aan soo dhaweeyo style markaad tiraahid dot dheh extension raaci css extension markaad raacid waxaan css inay yihiin waxaan ku ogaanayaa calaamadaas hashtagga halka html oo lahay calaamadaas tagga css kan wuxuu leeyahay calaamadaas hashtagga waxaynu isku xiri doonaa sida la isku xiro html kan iyo css ka maadaama ay yihiin separate file laba file oo kala go'an marka horeeto inline ka iyo embedded ka ma ahay inline ka iyo internal ka waxaynu ku dhex isticmaalaynaa html halka separate aan ku isticmaalnaa css ka oo external ah sida la isku xiraa html ka iyo css waxaynu tagi doonaa head section ka dhexdiisa ayaa tagaynaa waxaan dhahaynaa link markaad tiraadid intaana saa ku diyaarsan click bis aad dhahaysaa click markaad tiraadid inta uu ku banay waxaad gelin doontaa kaasalkaas magaca ku qoran css ka hadda waxaa noogu qoran style waxaan dhahaynaa style asaas oo qaban hadduu uu save gareysan yahay style.css control s adina save gareynaa hadda waxaa isku xiran html ka iyo css ka aynu bal wax ka bedelno marka wax ka bedelaysid css ka iyo html ka waxaa isticmaalaysaa waxa lagu magacaabo syntax waxaa shardi ah waxaa jira waxa la dhahaa selector waa kaad wax ka bedelaysid body hadda wax ka bedelaysid body aad dooranaysaa hadda head wax ka bedelaysid aad dooranaysaa sidoo kale waxaa jiro declaration properties waxa loo properties ka kaad wax ka bedelaysid waxaad ka bedelaysid iyo waxaad u rabtid mar kale selector waxa la dhahaa waxaad wax ka bedelaysid declaration kan waa la declaration properties iyo waxa la dhahaa declaration value declaration properties waxa la sida aad waxaad ka bedelaysid color ma ka bedelaysaa font size ma ka bedelaysaa background ma ka bedelaysaa iyo waxaad ku bedelaysid blue ma ku bedelaysaa green ma ku bedelaysaa waxaan tagaynaa marka Visual Studio Code ka hadda waxa aynu wax ka bedelaynaa oo kaliya paragraph wixii paragraph loo kan paragraph wixii paragraph loo dhan ayaa rabnaa inaan farta wax ka bedelno waxaan dooranaynaa paragraph markaan doorano waxaa shardi inaan qoys markaan furno waxaynu ka bedelaynaa background ayaan ka bedelaynaa background markaan ka bedelno maxaan ka dhigaynaa background waxaan ka dhigaynaa green sidoo kale waxaad dooran kartaa green kaas color-ka jeceshahay white hadda waa noo yahay waxaan dhahaynaa red yellow wax kasta dooran kartaa yellow waa save gareynaysaa waxaan tagaynaa Chrome-ka waxa la wixii paragraph waxa la rabaa inuu ka dhigo waa kana yellow ka dhigo sidee loo isticmaalaa section ama block qayb qaas sida wax loogu bedelaa hadda waxaynu wax ka bedelaynaa navigationadaas waxaynu isticmaalaynaa external css ka tagaynaa navigationada waxaa muhiim meesha ku yaala inaad ogaatid waa kan navigationada maxaa waa head waxaa soo dooranin waxaa kaliya oo dhigi kartaa anchor element selector ka anchor iga dhig waxaan ka bedelo waa background color waxaan ka dhigayaa yellow save garay kadib Chrome-ka soo kac waa kaasa background navigationada ama ankaradaas waxaynu ka dhignay blue waxa ka dhignay jaalo ayaa ka dhigan fartoodana waa bedeli karnaa waa ku sii daba qaban karnaa inta kaliya waxaan dhahaynaa color marka dhahno fad hadda maadaama uu yahay yellow markuu yahay waxaan dhahaynaa red color si isku soo baxanaya loo doortaa aan save gareynaynaa waxaynu tagaynaa browserka waa ka safartii waxayna noo noqotay guduud hadda soo dhaweyno waa ka guduud waa background dambana waxa waayn yellow waay hal mar haddaan isla dul marno waxaa dhahnay horta si isugu xirnay html markaan sameynayno css oo ah external waa inaan sameynaa file cusub fileka waxaan kasoo abuureynaa halkaas new file ayaan dooranaynaa
kaliya marka ku dhahno faylka magaciisa sameynayna kadib dot extension raacina extension waa css laakiin faylka magaca irta u bixi kartaa hasan.css umar.css wax la xarta u bixinaysa css waxa laakiin muhiim waxa shardi ah inaad u bixidid inaad raacid extensionka new aad dooranaysa faylka dhida kadib waxa isku soo xaririnaysa head extensionka tagaysa markaad isticmaalaysid externalka head extensionka tagaysa headka inta ilaa inta waa meesha aad ku qori kartaa headka waa kaas intuu ka furmaa inta ayuu ka xirmaa anigu hadda inta ayaan ku qornay kaliya waxa dhahaynaa linkaad ahanay asaan oo dhameystira gacanta oo ka wada qori karnaa waxaan isticmaalaynaa Visual Studio Code waa editor kugu fiican ee loo isticmaalo programmingka asaga ku dhameystira kadib waxaan gelin doonaa magacii uu soo bixinay style magaca inta gelinayno waxa shardi ah magacayna xaq u soo bixinayna gelino magaca kale ma gelinayno style hadduu ku diyaarsan asaga ku soo qaban doona internet haysa saas isugu xirmeen kadib CSS ayaa tagaysa kan waa HTML waxa lagu garanayaa tagas kan waa CSS waxa lagu garanayaa hashtagas HTML waxa lagu garan doonaa tag kan hashtag waa kadib waxa shardi ah ina isticmaalsid syntax kan rule kan selector inaad meesha aad wax ka bedelaysid sheet kamiya anchor kamiya paragraph kamiya waxaad wax ka bedelaysid sidaad ka dhigaysid iyo colorka oo rabtaba nooca oo rabtid cashirkan inta ayuu og yahay oo aad ku maashantaa daawashada muuqaalkan fadlan cashiradii hore haddaad soo daawo maxaa yeelay waxaa ku adkaa doonto in cashiradan fahantid waa maxaa yeelay tutorial oo isku xiran cashirada fadlan haddaan ugu cusub tahay nagu soo biir subscribe noo saar channelka like taaduna noo muhiim siina share galis u gaaro asxaab badan oo ka faa'iido. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.